dhiigana Ethiopia ku dhaawacmaan xaqooqdii anagu aan lahayn oo dawladda hore ku lahayn wixii dawlad isbedelay hal xabba kama helin waxaan cabasho ka nahay oo rabnaa annaga naafaanahay dalkaana u soo dhaawacmay dhiiganaga ku daatay anagoo difaacayna dalkanaga oo dalka iyo diinta daafacayn aan dhaawacmay waxaan ku dhaawacmay meel yiraahdo qallaafe meel ka sokeeyo oo ilaa neeri halkaasna 32 sano xaqooq iyo tixgelin iyo sharaf iyo waraysi mid aan helin waxaan u sheegayaa haddana gaar ahaan ugu sii sheegayaa maxamed tahliil biixi askartii hore oo dadka dagaal geliyo kamid yahay 7 rag dadka dagaal geliyo kamid yahay saraakiisha joogto kamid yahay waxaan asaga cod ugu nahay ma ka hadlo naafadii hore dalka ee dadka u soo dhaawacantay waxaan ahay Axmed Cabdi Gabayre ku nool gobolka Galgaduud degmada Dhuusmareebeed meel dhanka bari ee bari waqooyiga aadan Daarusalaam Kaskadoon 76 ayaan waxaan ku beeray xoog dalka Soomaaliyeed waxaan noqday askari buuxa waxaan ka bacdi galay raggii 77 dagaalka koobaad lagu bilaabay dagaalkaas waxaan ku jiray 77 78 79 81 bishii koobaad ayaan ku dhaawacmay dagaalka Itoobiya anoo dhaawacaygii leeygeeyay isbitaalka Martiino aan ku jiray 9 sano aan ku jiray annagoo isbitaalka ku jirna oo sidii dawladda noo xanaanaydo mushaarkanaga waxa naga qaaday daawadana kafaala qaaday naafana ah isbitaalka Martiino waxa dhacday qabti Soomaaliya dhan ku dhacday shiiba Muqdisho subaxaas qabto dhacday ayaan waxaan sameeyay in aan soo carar oo isaga soo baxo meeshii aan ku dhashay aan 1991 bishii koobaad 28 aan ka soo cararay intaas aan ka soo cararay ka bacdi waxaan iska ahay nin naafa meeshaas ku nool ehelkiisana lool laakiin xaqooqdii oo u soo dhaawacmay oo dalka iyo dadka kula aan helin waxaan ahay markaas dhiigaygu wuxuu ku soo daatay aniga wadanka Soomaaliya dhibaatada geysatay wax kama geysan dadka Ilaahay ka badbaadiyaan kamid ahay waxaan ahay dhiigana Ethiopia ku dhaawacmaan xaqooqdii anagu aan lahayn oo dawladda hore ku lahayn wixii dawlad isbedelay hal xabba kama helin waxaan cabasho ka nahay oo rabnaa annaga naafaanahay dalkaana u soo dhaawacmay dhiiganaga ku daatay anagoo difaacayna dalkanaga oo dalka iyo diinta daafacayn aan dhaawacmay waxaan ku dhaawacmay meel yiraahdo qallaafe meel ka sokeeyo oo ilaa neeri waxaan codsigaygu yahay u baahanahay oo anagu saas anagoo naafa intaas naafa ahay 32 sano oo cidna daryeesha la arag madaxweynuhu nama oga dawladda xoog wasiiradu nama oga taliyaha xoogu asagu waa man yar laakiin oo xaq u leeyahay maxaa iga horeeyay maxaa naafa dhacday askartii hore waxay ku sugan tahay asagoo midda iska maxil saarin waxa markaa aan hadda aan arrintanadu ku sii jeedaa waxaan leenahay askariga maanta boodaya iyo askarigii horeba ina anagu ka sii xaqooq badan nahay halkaasna 32 sano xaqooq iyo tixgelin iyo sharaf iyo waraysi mid aan helin waxaan u sheegayaa haddana gaar ahaan ugu sii sheegayaa maxamed tahliil biixi askartii hore oo dadka dagaal geliyo kamid yahay 7 rag dadka dagaal geliyo kamid yahay saraakiisha joogto kamid yahay waxaan asaga cod ugu nahay ma ka hadlo naafadii hore dalka ee dadka u soo dhaawacantay wuxuu la jaan qaadayaa hadba kuwa cusub oo hadda kuwaan dagaalka ku wada qolada dagaalka wada hadda oo la jaan qaadaya waxa asaga su'aalahan ee garta la xogtanada uu hayaa uu og yahay wax oo nooga weecdo horta su'aashaas inaan helo waa u baahanahay waxa kale oo ku sheegayaa oo hadda sheegayaa saraakiil badan oo la shaqeey jirnaa jira kornal Cirro idaacadu ka hadla ninka la yiraahdo Cabdullaahi Macu uu ka hadla intaas oo dhan wax naafadii hore oo dalka ku soo naafooday oo dhibaatada ku soo gaartay oo dhiigooda ku soo daatay kama hadlaan annagu waxaan ahayn dad si sharciyana madaxweyne u xukumo wasaare leh taliye xoog leh wasaarad gaashaandhig leh taliye xoog leh ana horta marka koobaad anigu waxaan ahay waxaan ka tirsan qaybta 12aad gaaska shanaad guutada 8 ururka 260 hadda cabashanada waxay ku ag tahay maxaan beenana la ku iloobay ma wadankaana xaq u yeelan ma laga daran yahay dawladdii gumaysi Talyaaniga nimankii Talyaaniga iyo Ingiriisku
darna waara ciidanka lii jiray wuxuu u qoray waxa la yiraahdo wuxuu u qoray lacag u qoray scout waqooyi lacag buu u qoray lacag la hawlgab war annaga xaan ku weynaanoo dalka u dhaawacanay oo Soomaaliya oo wadanka dambi ka gelin oo xaqo waxaan ku weynaa karabnaa markaas madaxweynaha waan ka rabnaa codkaas waxaan ku weynay ra'iisul wasaaraha waan ka rabnaa wasiirka gaashaandhiga waan ka rabnaa taliyaha xooga waan ka rabnaa taliyaha ciidanka dhulka maxamed tahliil biixi aan ka rabnaa asoo wuxuu ogaal siiyaa waliba hadda waxaan codsanaynaa annaga oon hadda cabashadana tahay xaquuqdii aan lahayn inaan helno haddii wadanku waxa u jeednaa waa dagaalaha ka socda dhib waa ognahay waxaan kale ku jira ognahay annaga naafaanahay inna la ilooba xaq u male halgaman yaalaanahay dilka wadanka dhiiga wadankan ay ku daatay waxaana dagaal gelinay madaxweyne sharciya wasiirka gaashaandhiga taliyaha gaaska taliyaha qaybta taliyaha gaaska taliyaha guutada taliyaha ururka inta dhan waana dagaal gelin jireen marka waxaan leenahay madaxweyne arintaas cabashan u cabayna waxa waa tixgelinaha siiyo 32 sano ayaan waxaan ku jirnaa aan baylahnahay ilaahay baylaha naga ma dhigin laakiin xagga dawladda aan xuquuqda ku lahayn baylaha ka nahay wasiirka gaashaandhiga orkaas waa u sheegnaa asna sidoo kale aan karnaa taliyaha xooga waajib gooniya saaran inkastoo nin yar yahay inuu xogtanada ururiyo oo ogaadaan waajib ugu leenahay inuu naga aamuso ma ahan in kuwa cusub oo la jaan qaada ma ahan waxaan haddana kale u sheegaya taliyaha qaybta 22aad wax xoga naga ma hayo waana nool meesha jooga ka joognaa midka madaxweynaha galmudug kaas awal ba iska shacab oo ahay wax tixgelin asna kama helno oo walba naafahan hadduu sax noo tixgelinayn xagga naafanimo noo tixgelin hadduu noo tixgelinayn halkan kanagii hore waxaan u baahanahay marka aan rabnaa xaquuqdii aan lahayn inaan helno wadanka dhiiganaga u daatay waa soo halganay annagu maasuq kuma aanan socon dawlad sharciyaha wadatay waxa kamida saraakiishii haddana wadatay dagaalka hogaamayda labada kuwii horena in la naco kuwa dambana la jaan qaadana ma fiicna halkaas aan xaquuqdana karnaa arintaas waxay waliba aad ugu sii jeedaa warbixintanada inuu gudbiyo ninka maxamed tahliil biixi taliyaha ciidanka dhulka